بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dadkay meel walba joogtiin waan idin salaamayaa maanta waxaan rabaa inaan waxyar ku noqdo oo sheego xanuunada nafsiga xanuun ka mid ah oo afafka qalad loo yaqaano paranoid disorder waxay noqonayaan yani qof delusion qabo ama qof wax qaldan aaminsan yani qof aaminsan in la dili rabo ama loo tashanooyo ama boos oo adduunka oo ka haya yani sulda inuu haayo camal oo laga degsan rabo oo la dili rabo camal oo aaminsan yahay yani wax asaga oo toos u aaminsan yahay oo maanta haddii aad maya aad dhahdid oo kuu malaynaya inaa cadowgiisa tahay marka qofka maanta dhan waxaa ka dhaadhacsan labada qof isla taagan inay asaga u tashanayaan oo dili rabaan in cuntada wax looga soo dari rabo marmar maanta dhan markuu jidka socdo gadaashiisa wuxuu aaminayaa in la daba taagan yahay oo markaas la dili rabo dadka dhan wuxuu ka qabaa phobia inta badan way la socdaan mujtamac laakiin marka dambe qofka wuu soo xaroonaya sababaha uu soo xaroonayo waxaa ka mid ah in aaminaadii qalaas sii jarmayso aaminaadii oo dadkii aaminayay ama mujtamaci oo ku dhex noolaan lahay inay kasii dhammaanayso sidaas daraadeed wuu sii cabsanaya cuntadii oo ka cabsanaya wuxuu ka cabsanaya dadka inuu dhex galo wuxuu ka cabsanaya in booskaas oo haayo laga disho oo laga dilanayo kuwa qaar waxaa jira aaminsan in ay leeyihiin awood gaar ah oo wixii aad sheegaysid ay kugu qaban karaan يعني waxaas ka fikiroosaa waxaana dhihi rabtaa ma aho saana wax yeelin rabtaa ma aho yani maanta dhan waxay ku mashquulsan yihiin inay awood iyaga iska aaminsan yihiin inay leeyihiin inay qofka kale uga dhex raadiyaan ficilada oo samayn doono marka kuwaasna waxay ka mid yihiin xanuunada nafsiga oo ilaahay keenay wax la caafimaad karo laga daawoobi karo waay intaasaa maanta idin la wadaagay dadkayga waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu